mudane madaxweyne dhakhtarka qof kastoo gaadhi la dhaca wuxuu u baahan yahay sawirka Hargeysa loo diraa mudane madaxweyne Berbera waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee janibta yimaadaan waxaa sababa xagga xirfadda Berbera waxa ku yaala iskuulka farsamada gacanta oo aan bariga hore tala ku lahaa iskuulku uu dhisan yahay laakiin waxa ka muuqata inaan miisaaniyad badan haysan iyo dhaqaale la'aan marka madaxweyne waxaan soo jeedinayaa si looga maarmo ajaanibtan faraha badan leh ee Berbera imanaysa in iskuulka la xoojiyo mudane madaxweyne xukuumaddaada dumarku way ku yar yihiin ama matalka dumarku aad bay ugu yar yihiin marka doorka gobolka haday noqoto xagga dekada iyo haday noqoto meelaha kaleba meelaha muhiimka ah inaad nasiisaan ka codsanaa oo matalkeega ka dhax aragna hadaan nahay hablaha gobolka saaxil su'aasheedu waxa weeyaan anoo soo koobaya waxa jirta xaruma tababarka lagu bixiyo caafimaadka sida school nursing oo kale way ka jirtaa gobolada kale ee Soomaaliland laakiin Berbera kama jirto madaxweyne markaa waxaan rajaynaynaa in waxaan kaaga baahanahay inaad ka noo hirgeliso oo maxay hadeen noo sameeyo goob si ay baahida caafimaadku wax badan uga daboolmaan oo iskuulka nursing ee dawladdu ay leedahay way uga fiican tahay ardayga kale meel kale ka soo baxay runtii tababar fiican baa la siiyaa uga wanaagsan yahay tay ahaan marka la eego wassalaamu calaykum الله يركان لو علعليو dadku halkan ba ku noqnoqdaan baatiri waa mushkilada aanu kala digoynay labada habeenimo xagaaga aragto leerku ugu baqtiya saddexda maalmo ugu baqtiya gudoomiyaha degmada ugu ashkatoona barasaabkan ugu ashkatoona wixii taagtooda wixii ilaahay la qabtay wixii soo gaarsiiyaanba imka laakiin adaa fadhiya mudane madaxweyne waxa jira Berbera waxa laga dhisayaa freezone kaas waa dhul ay degmadu leedahay 13 kiiloomitir oo isku wareega dhulka degmada lahayd sharciyan marka dib walba lagu wareejiyo dhulka iminka mas'uuliyadda la wareegaysa dhulkaas lacag badan uu ku kacayo malaayiin buu noqonayay maxaa degmaahan bedelo oo aan helayna oo markay iminka dib walba meeshii manaaficadsanayso maxaa iyadana Berbera ka soo noqonaya xukuumaddaadu muddo intii ay jirtay 5 sano ahayd mashruucii ugu weynaa ee iminka la marjeerta waxa weeyaan mashruuca la yiraahdo shaqo qaran waxa uu faa'iido qaranka u soo kordhay dhalinyaro badan ku faa'iiday laakiin waxa jira mudane madaxweyne dhalinyaro gaab heerka ay taagan tahay shaqo qaran lagu galo dadka ka sareeya ama aqoon ahaan ama da ahaan dadka iyaga aqoon ahaan waa dad oo inay qaranka wax ka qabtaan waana xirantay halkii laga galay positionadii laga galayo waxa ku xiran in la galo beerolkii dawladda maxaa iyaga xal loo hayaa chance u helayaan wassalaamu calaykum maxaa loo maraa meesha la shaqo qaran waxay nagu dhacay kala go maadaama aynu dagaal ka soo doognay dadku dhaqaale ah markaa shaqo qaran waxa ugu horeysa in dadka barito hogaaminta maxaan u dooray degree maxaan leeyahay xore waay dadka mustaqbalka raas barto laba sharciyada dadka waxa eega waa jaamacada mid xabashi u keen mid carab u keen mid ingiriis u keen mid duruus u keen mid waxa ka fikiraya nin waliba culture qof waliba culture gaar la soo noqdo marka waxaan u baahanahay in la sii yimaado waliba dhaqaalaha inaga xun waa 3 bilood oo qura inay common iyagoo ah oo isbartay oo shuruucda dalka akhriyay oo iyaga aqoonyahana wixii u dhimanna ku dara iyagana isaqaano Brit Hebel iyo Hebel oo isku kala isku yimaada marka nin waliba uu soo maraa oo kooraska qaato kooraska maxaa ugu xidhay dariiska inuu dhahnaa hay ismaqna haddaan marka hore la leeyahay qofkan amar qaadashada la barinba aqalkan uu gal karin markay sii wadaan tayaa lama geeyo askar loo diyaarino laakiin inuu qof kale amar qaadan karo oo arooti uu toosin karo oo gogoshaada gogol uu dhaahdo mustaqbalkaada way wanaagsantay marka la yiraahdo waxa weey in la ismaqlo laga dambeeyo wada saadarteed dadku markay ka baxaan bay kala imika askartoo kale ninka maastari laba xidgood buu qaatay askartiga hadduu dhakhtar yahay dhakhtarku mar walba wuxuu la mid yahay maasterki oo kii kala xiddigta wada galeen uu dheer laba xidgood kii maasterkana waa sidaa taariikhdaasa loo maraya leyrka Berbera qof walba loo jooga uu ka hadla waa dhibaato soo kordho horne marka iyada jawaab aan ka soo bixin dawlad ahaan asku noqonaynaa bay qof walo ilaa shalay ilaa hadda ayba leerka wala istaagay horena waa looga hadlayay farsamada gacanta dalku
uma baahna intaasoo social science oo social u badan oo jaamacado baacmishari carruurta dhalinyarada ay siiyaan waxaynu uga baahannahay intaa in ka badan oo farsamada ah dal sideeda ka soo kabanaya dhaqaala xumana wuxuu hore ugu maraa waayo aragu u sheegayaa inuu gacanta farsamada hormariyo wax walba jabaan iyo dalalkii dagaal jarmalka markii dagaalka labada adduun ku dhacay sideen oo kale waxay kaga baxeen diblooma farsamo yaqaan marka waa priority number 1 tabarbeere dhisana wixii aan u tari karayna waa tarayna laakiin tabateen dhaqaalaha ogolaan la farsamada maxay shirku ama private u dhisi waayeen iskuulo private iskuuloyin farsamada waa kharashka markaa berbera waa laga bilaabay waanu taageerina waxaanu kale karno ninka dhakhtarka iyo CT hala keeno sawirka baarkan iskaan waa ridoowa waa isku qoriyadana anu waxaan filayay magaalada waxa ku badan accidents oo de waxay u taala jid socodku ku baday oo su'aalaad u barbaarinta marka waxaan isleeyahay haddii proportion loo eego waxay noqonaysaa magaalada car accident-ka u badan kusoo hagaago marka kaasina waa eega gara waa laga noqon doonaa free zone dhulka distoorku wuxuu leeyahay dhulka ilaahay baa leh shacabka Soomaaliya bilaad baa leh maamulkiisana dowladda dhaxaale isaga iyo waxa hoostiisa ku jira maxay helaysaa berberi degmo kasta iyo gobol kasta oo ay ku soo korodho dad badani betrool baa laga helay macdan kale ka dilaacday warshad baa laga dhiso shaqaa loo tegay waa xeer adduunka oo dhan dowladdu waa gashay oo ah dadka culays baa ku dhacay meesha loo shaqo tagay ummadda badan isku tagtay magaalo kastoo dad badan isugu tagaan deegaankii lahaa dadkii deganaa culays baa ku dhacaya biyaha lala qaybsanaya caafimaadka lala qaybsanaya dhulka lala qaybsanaya iskuulka lala qaybsanaya waa inay jirtaa bolosiga loogu cawil celiya waa gobol kasta oo manfac ka soo baxo oo dadku soo ururaya 7% baa laga siinaya dhaqaalaha shaqaalaha hoose shaqaalaha wax kastoo yihiinna 10% baa la siinaya waana lagu hirgeliyey gobol kastaana waa la mid kii maanta wax ka soo baxaanba ila berta wax ka soo baxayaan wallaahi arrintan hablu garashada ka haynaa waana dhibaato jirta laakiin wixii aan siyaasad ahayn ee shaqaalaha ah waryaalahan wardi rag oo aad u wada qabna ilaa hablu noo yimaadaan way xishoodaan xafiisyada ma soo galaan